Suldaan Ibraahim Suldaan Sulub oo ka mid ah salaadiinta reer Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland casuumad loogu sameeyay Suldaan Ayaalne Suldaan Maxamuud Maxamed Xandulle oo dhawaan degmada Sheekh lagu caleemo saaray. Casuumadda waxaa goobjoog ka ahaa Suldaanka guud ee beelaha Suweerawal, Suldaan Xasan, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Cabdilaahi, Suldaan Diiriye iyo salaadiin kale ugaasiyo boqorro siyaasiyiin uu ka mid yahay. musharaxa gudoomiye ku-xigeen ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Maxamed Cilmi Aadan Ilkacse iyo aqoon-yahano kale. ugu horeynba waxaa madasha qada sharafta ahayd ka hadlay Suldaan Xasan Hubbo oo u mahad celiyay Suldaan Ibraahim Suldaan Sulub oo soo agaasimay casuumadda maanta lagu fidiyay Suldaan Ayaalne Suldaan Maxamuud. Suldaan Xasan Hubbo oo ka mid ah salaadiinta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegay in bahda dhaqanka had iyo jeerba ay ka shaqeeyaan arrimaha wanaagsan ee bulshada dhexdeeda oo ay isugu soo dhaweeyaan munaasabadaha uu Suldaan Ibraahim Suldaan Sulub oo maanta uu sameeyay Suldaan Ayaalne Suldaan Maxamuud Maxamed oo ku tilmaamay hadhimo sharafeed weyn oo la isu arkay isla markaasina ka mid ahaa casuumadaha loogu soo dhaweeyo Suldaan Ayaalne Suldaan Maxamuud Maxamed Xandulle oo dhawaan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil lagu caleemo saaray. waxa kale oo isaguna goobtaasi ka hadlay Suldaan Mawlid oo ka mid ah salaadiintii ka soo qayb gashay casuumadaasi oo la dardaarmay suldaanka cusub. hadhimo sharafeedkan maamuusan ee quruxda badan iskugu keenay bahda dhaqanka iyo siyaasiyiinta halkan jooga. macsuumadan maanta waxaa le Nuux Ismaaciil xalfadii hore way ka duwan tahay. waxbaa la socda nin waliba barakana way la socotaa. xafladan lagu maamuusayo Suldaan Ayaalne Suldaan Xandulle ee Nuux Ismaaciil ku maamuusayaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waanu mahadnaqaynaa sida u shafreen iyo sida u soo agaasimeen labadaba waanu ugu mahadnaqaynaa. waa xaflad qurux badan, waa xaflad dhaqan. annagu dhaqan uun baanu ka hadlaynaa, xusbi ma nihin, xusbi iyona ma nihin, salaadiin dhaqan baanu nahay, dadkana waanu u dhaxaynaa. xafladaha maamuuska ee guurka iyo xafladaha caleemasaarka ayaa waxa weeye himada ta koobadaanu siinaa. meelaha kale la marmarayo annagu haddanu salaadiin nahay waanu ka reebannahay. cidna iskuma diro, cidna ma colaadino, cid walba salaadiin baanu nahay. ninkiina soo dhaweeyana waad mahadsantahay baanu leenahay. ka kalena caayi mayno, waxna u geysan mayno. waxaa kaloo isaguna goobtaasi ka hadlay Suldaan Mawlid Cali Sabayste oo la dardaarmay suldaanka cusub. dhankan kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay Suldaan Caawil oo ka mid ah salaadiinta goobta ku sugnaa, waxaana uu duco iyo dardaaranba isugu daray suldaanka cusub. gabagabadii munaasabadaasi ayaa lagu guddoonsiiyey suldaanka cusub kitaabka Quraanka Kariimka ah. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.